eedaynayo maqal eedaynayo maqal halkan aan taaganahay waxa ay ka mid ahayd deegaanka Soomaalida laakiin hadda waa dhulka Oromada lagu bulshada baabili islaamiyo kirista mooyaan kana maxay ma naqaan lama kala aqoonba lama yaqaanaba aniguna aqoontay shan kastoo nabaabulo afur mooye daaho unkii maayo weedhahan sharaftaa ku ooge ereygee u mudanon mukhtaar kugu ammaana ya nuura ablaj ya bahaawul abhaj mahma qaala arwaj السلام عليكم صاحب يال كسر هذا لنا مقال عصب مقال كان ما أنت إن شاء الله عادي أد بقرح بدنا نطونا هدول إلى هذا بورها نقدم بيه هذا كيسين وحال إلى هذا بوره معجزة مقالة بابلي أيان أفاف كده هو رتاجنا هاي وحويان إن مقالة هذا واحد روتر توحى عن هالكيلومتر لنين إن شاء الله مقال كنا ما أنت نوحى وكسب سيه ومقالة داس يوحد لنا مقال كن إلا رماتك أد بوحيس بديه إيش كوايا مقالة أنا دي شيء waxa ay kamid ahayd deegaanka Soomaalida laakiin hadda waxa ku taala dhulka Oromada insha Allah xogteeda iyo waxa ay caan ka ku tahay oo dhan waxaan ku kala qaadan doonaa waa muuqaalka gudaha magaalada ku saabsan hadii la yiraahdo ee isha lagu hayo sidoo kale waxa weeyaan magaaladani waxay leedahay dhagaxaan aad iyo aad mucjiso ah oo isku dul saaran yacni space-ka isku hayana aadan maleynaynin oo dan is oranaynin dhagaxaantani yacni saana isku sii dul saaraan doonaan dhagaxaanta waxa la ii sheegay in wax walba lagu tijaabiyay oo xataa suugaag lagu dhufto la kala fujin kari waayay bal iyagana insha Allah xogtooda dadka magaalada jooga ayaa warkaaya xaggaasaan information kooga iyagana ku ogaan doona ee nala socdaan leenahay magaaladan tagina waxa weeyaan dhagaxaantan idin sheegaya waxa kamid ah dhagaxan hadda aad arkaysiin waxa uu iska haysta inta yar aad arkaysiin intuu leegahayna waad u jeedin kulli ee muuqaalka la socda saaxiibayaal muuqaalkan waxa igu helinayaan nin xagga kamarada taagan oo channelka in badan ka soo muuqday sharaftaa ku ooge ereygee u mudanon mukhtaar kugu ammaana ya nuura ablaj ya bahaawul abhaj mahma qaala arwaj wallahi anta khayru khalqi llaahi ajmac ya nuura ablaj ya bahaawul abhaj mahma qaala arwaj والله أنت خير خلق الله أجمع أدوك يكون كنغلوسان إله كنا بورسان تنتو والكما إشارسان أو قاسن أبو واستيسان يا نور الأبلج يا بهاول أبهج مهما قال أروج والله أنت خير خلق الله أجمع يا نور الأبلج يا بهاول أبهج مهما قال أروج والله أنت خير خلق الله أجمع قليلة قالوسا طاهو كوغو جنبرارسن ونكي ملي باش قرارسن الله سكسي يا يخلغسن يا نور الأبلج يا بهاول أبهج مهما قال أروج والله أنت خير خلق الله أجمع وحويان أصحابي هذا سادو jeedin waxa soo gaarnay waxa weeyaan waa suuqa bartankiisii ninka aan idin sheegay kamarada dabadeeda taagnaa waan kan maama laki waraad banin salaam ya khayr ramadaan mubaarak ramadaan aad ha looga faa'iideysto ninkan deeqsin waxa uu weydeen waa ramadaan aawada sheekh buu noqday sheekh ninkii maama inta yar ha eegin laakiin sida kale waa marka saabay hadda waxaan wada nin yacni dadkii magaaladan iska lahaaya wuxuu waxaan idin geenayaa meesha ugu weyn ee lawska lagu iibiyo Soomaaliya bal waan soo eegnaa suuq run ahaantii waa suuq aad iyo aad u dad badan laakiin magaaladan 2 sano ka hor sidaan maayn in koo dhisantay qurux badnaatay ma moodaysid ba inaad joogtid magaaladii aan 2 sano ka hor joogin aan joogin ma malayna maanta marka waxa weeyaan laakiin niyo inta aan soconnay sax wax dad oo Soomaaliya
oo inaga soo horbaxa dadka aad looma kala garan karaa markaad Etoobiyada sare tagto qofka Soomaaliga iyo qofka kale Etoobiyaanka lama kala garto inta badan okay marka waxa leedahay ormo waan isku egnahay marka taas ugu wacan dadku sheemku isku yareeyeen muuqaalaanta marka taasa keenaysa maadaama aan isku sheebnahay marka waxa weeyaan asxaabay insha Allah waxaan tagi doonaa haddii la yiraahdo goobta aan idin sheegnay ee maroodiyaashu joogeen haddii aan la soo kulanno maroodiyaashaas muuqaal qurux badan baan idinkala soo wadaagaynaa haddii Ilaahay naga nabad keeno soo insha Allah maroodigaas waxa la yiri waan sii cabsanayna wadnaan farta ku hayaa looma dhawaan kara baalkaas dadku dilaa baa la yiri waa riski baa la yiri waa riski 1 kiiloomitir hadduu ka soo eryado kii la inoo sheegay magaciisu halqooq halqooq baa la yiraahdaa ka macnaha halqooq waxa weeyaan waa ka ugu weyn macnaha inta mas'uulka ka inta daba socod marka waxa dad kaliya qooqdo weyn taas maqal eedaynayo maqal nurkiyo ilayska la taray waxa weeyaan asxaabay waxaan la joognaa mid ka mid ah duqeytida magaaladan aqoonta goorida oo leh xaaji waan ku soo dhaweynayaa magacaaga muxuu ah Muxiidiin Aadan Xuseen baa la yiraahdaa Muxiidiin Aadan Xuseen adu magaalada degan tahay Soomaa waan deganahay intee lag baa joogtay waan ku dhashay ma halkan aad ku dhalatayba halkan aan ku dhashay haye okay bal magaaladan warbixin naga yarsi magaaladan maxay caan ku tahay magaaladan horta kow magaalada Baabil waa magaalo magac weyn leh haye la yaqaan caalamkana laga yaqaan haye sida biyaha Baabil biyaha Baabil waa biyaha kulul may waha Baabil baa la yiraahdaa biyo waxaan ku dhigay caloosha kala furfuraa jira magaalo ilaa caalamka dibadda u socda haye maroodi haye lowska haye dhagaxan Baabil oo saaran haye adu waxyaalo badan bay caan ku tahay magaalada Baabil ma jira magaaladan magac loogu yeeri jiray intaana Baabil la oran yacni bariyi hore magac ay lahayn jirtay way jirtaa reer imika xagan waxa weeyaan galbeedka naga xiga ee la dhihi jiray Igo ayay ka soo guurtay Igal la yiraahdo sidii bay halka magaalada ay soo degtay barigii wadada la sameeyay wada kala xaga mari jirtay wadadaasi Igal dhex mari jirtay marka Igal la dhihi jiray okay waxa weeyaan saan hore idinku sheegay magaaladani waxay ka mid ahayd deegaanka Soomaalida Soomahay bari hore kolle Baabili anagu waxaan ku leeyahay horta bariga anagu bulshada Baabili islaam iyo kirista mooyaan kana maxay ma naqaan lama kala aqoonba lama yaqaanaba wala saddex degi jiray anagu saddex degi jiray waa wiiliga gabar waa dad isjecel waa dad midnimada imikaba ku wada nool ma jiraan xaafado ay Soomaalidu imika degaan oo magacyo yacni Soomaaliya loogu yeero magaalada imika halkan fadhina suuq yar la yiraahdo suuq yar haye suuq yar la yiraahdo jigjigan suuq yar waan ka maqlay halkan ma suuq yar la yiraahdo haye xaafad kale xagga kale degta shishana meel xoolaha raaciga lagu xarey jiray xaafada raaciga la dhihi jiray marka intaas way jirtaa marka waxa weeyaan saaxiib yaal sida la noo sheegay magaaladani waxay leedahay maroodiyaal oo yacnihii meel ku xareysan maroodiyaasha insha Allah haddii waqtigu noo saamaxo iyagana waan tagi doonaa haddii la yiraahdo waan soo dhaweynaya xaaji barasho wanaagsan anigana deeq baa la yiraahdaa insha Allah maxaad leedahay dadka aranka daawanaya maxaad leedahay maxaad fariin gudbinaysaa waxaan fariinta aan gudbinayaa horta meel waxaan ku leeyahay laga maalgashado horta Baabil baa jirta sida imika maroodiga oo kale meel dheerna ma waa togan ereed weey ma garatay Soomaaliya ka tirsan tahay marka labada xaddaxdood uu degan yahay xagana waa Soomaali xagana waa Oromo anagu barnaamijkan cusub imkaan hele adu Baabil waa taasina waa Baabil tanna waa Baabil taasina degmada Baabil Soomaali tanna waa degmada Baabil waa Oromo laba kale lihiin ba labada meelood anagu isku mid bay noo tahay okay aad iyo aad baan idin salaaminaa anagu isku lifaaqay Sooma salaam dadka de salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad baan idin salaamay saan idin sheegay saaxiibayaal magaalada meeshaad martidba lows baa lala fadhiyaa ee lagu iibinayaa marka waxa weeyaan lows baan waxaan ka iibsanayaa lows sister salaamish in Danish
إننا مكرس فيديو لوس إيه هاي إننا مفلق عليه إننا راسه نسكيلو سنتنو ما تامسا كيلو دمو سنتنو صوص ماتو نسكيلو أمشي نسكيلو إيه نو أهم من بالله يشلله أي إيش وحويان لو سير بنحكي بسنة يا أو واحد تري نسكيلو سنتنا ليش ما تامسا ودنو والله بتأم ودنو تنش أستكاك ليش وحويان لو سير بنحكي بسنة يا صاحب يال وإلا تشتي أنا سقاطه كيف تبان لك يا باليري مركز بابيلي تمادد المقالة تجي سوينا اللوس كيف تيسي قادي إبرالار بقى إبرالار كان يصير أصايالينش تجيرله مركز صاحب يال لوس كان حكي قادر يا إلى الصعود ده قبل ديرنا واحد تري سيمي مانش سيستر سلام يعني فنس من على يعني كوديوش من على شا سلام ناتشو إندين ناتشو منك عاد بلشة كيسني سيني محاسك فانتين صاحب ninka wuxuu wareej keen ahaan jiray أيه sheekh nuur ciise meelaasaan deganaan jiray أفكي مكبودي أفكي af Soomaali de يا Soomaali uu yaqaan ninka aan ka fulnaa وحوين بورتن markaad dusha sare uga baxdid magaaladii baabili ahayd oo dhan ayaa saa kaaga dambeynaysa minaarad aad iyo aad u qurux badan baa xagaa ka muuqata مهما قال أعوج والله أنت خير خلق الله markaa waxa weeye saaxiib yaal waan soomanahayo naqaska igu dhegan naqaska anoo buurta salkeediiba taagnin buurtan waxaa la yidhi magaalada baabiliba halkan u soo dalxiista oo waxa weeyaan waa meel aad u qurux badan bal dushan soo eegaynaa saaxiib yaal waxa weeyaan asxaabay si aad u jeediin magaaladii oo dhan hadda waa hoosteeda oo buurtii aan soo koraynay dusheeda sare ayaan taaganahay xaggaa markaan istaagno waxa ku yaalla masaajidkaas aadka u quruxda badan leh sidoo kale laamidii weyneed ee bartamaha magaalada maraysa ayaa xaggaa ku taalla oo xaggaa marta waxa weeyaan saaxiib yaal halkaa waxaa ku taalla iyaduna waa kiniisaddii weeyaan oo waddankan waxaa isku agyaalla masaajidka iyo kiniisadda waa jaar weeyaan muuqaalkeenna saaxiib yaal waan sii wadan doonaa isha ha lagu hayo waxa weeyaan halkan dalxiisayaal badan baa jooga dadka iminka gadaasheeda jooga oo dhan waxa weeyaan dad meeshan u dalxiis yimiday oo xaggan waqti iskaga qaadanaya walow la ii sheegay casarkii markay gaadho inay meeshan aad iyo aad u soo camiranto muuqaalka la socda sidoo kale dhagaxaantani maaha intan keliyata ee buurtu magaalada qayb waxa weeyaan magaaladu waa buuraley weeyaan oo xaggan magaaladu ma soo duldegi karto magaaladu ma degana magaalada hoosteeda magaaladu aad bay uga hooseysa halkan aan joogno يا نور الأبلج يا طاول الحج مهما قال أعوج والله أنت خير خلق الله أجمع يا نور الأبلج يا طاول الحج مهما قال أعوج والله أنت خير خلق الله أجمع magaaladu waan ka soo baxnay oo waxa weeyaan waxaan soo gaadhnay meelahan ay khudaartu ka soo go'do sida naloo sheegay magaaladani khayraadkeedu waxa u badan yahay khudaarta iyo lowskii aan haddeer idiin sheegayn magaalada ka iibsanay waxaan iga dambeeyo oo dhan aad arkaysiin waxa weeyaan waa camba weeyaan camba laf baan u aqaanaa anigu walow hadda una bislaanin laakiin waxaasoo dhan ilaa halka aad arkaysiin waa camba lafkan maamo Soomaaliyeed baa iska leh oo ma taqaanaa ka shaqaysay xaggaasay fadhida waan ku laabanaynaa hadduu ilaahay idhaahdo laakiin beertu aad iyo aad bay u weyntahay waxa weeyaan waan soomannahay oo beertan maanta kamaba baxeen anoo ka qadeeyo mooyaane laakiin hadda waxaan ku soo beegmay waqti rabadaana maamadu waxay ku tiri iska sii guro
waxaan kaga yaabay dadka beerahan gacmihii iska leh maalin dhaweyd muuqaal aan isagana duubay oo waxa jira beer sidan oo kale aan booqday waxa igu yiraahdeen intii aad cuni karto oo dhan iska cun baa la igu yiri iminkana waxa la igu yiri halka sidoo kale waxaad uga baahan tahay waad cuni kartaa daadan Soomaaliyeed markaa saaxiibayaal waan soomanahay muuqaal intaan ka badan inaan sii duubi karin baan u maleynayaa ee muuqaalkeena waan iska soo gabagabeynayna shimbirta xagga joogta bal waxaad u taqaaniin isoo sheega digaagadna maaha waxani anigu waxaan u aqaanaa kulay waxaan u aqaanaa qilinqil baan oran jirnay malaha qilinqil waxa weeyaan waa labada yarare inay isqabaan baan u maleynayaa inay isdhaleen garan maayeen markaa geedahan aad arkaysiin aad u waaweyn imka geedka intaa leeg waa camba weeyaan waa camba laf weli ma arag beer sidan oo kale u qurux badan ama ma arag sidan oo kale u baxday maanta dhan haddaan dhex socono beerta kama baxayno beertii gudaha ka soo baxnay ay warbixin yar weydiinayna haddii la yidhahdo maamadan agteena joogta xaggana deganta Soomaalidu hay magacaaga muxuu ahaa xanimo waxaan ku weydiiyey maangada intee lag baa la sugaa markay sanadkii soo go'ayso ama yacni waqtiga intee lag u baxda hadda kolkay soo baxdo kol haddee bislaan kol haddee beertu weynaado bisha leeyna haddii la yaro xagga ugu badan ee la geeyay loo qaato halkee loo iibsada لا تشتري ما هو جانا تطلع والله اوكي وحويا صاحب يال وقال كان هلكن ايام كسو خيرنا اد بان كو سلامنا رمضان كريم يا waxaan ka iibsanaynaa laba baxood oo saytuun